wasiirada wasaaradaha madaxtooyada iyo maaliyadda ee Soomaaliland oo maanta safar shaqo ku yimi magaalada Berbera ayaa ujeedkoodu daaranaa kormeerka dhulka Freesonka ee dekeddu ku fidayso walibana sidii ay uga warbixin lahaayeen xuquuqda shaqaaleynaha dekedda Berbera markii uu kormeerkaasi soo dhamaadayna waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay maamulka gobolka Saaxil wasiirada madaxtooyada iyo maaliyadda ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada iyo walibana ka dekedda Berbera muddooyinkii dambe gobolka Saaxil waxa ka socday mashaariic horumarineed oo maalgashi oo aad u fara badan kuwaas oo maalinba tallaabo soo qaadayay mashruucaas oo ay kamid ahayd mashruuca DBWL iyo mashaariic kale oo fara badani xubnaha golaha wasiirada ee maanta halkan maraya waa xubnihii steering committee-ga oo ahaa mashruucii DBWL ay dekedda ku maalgelinaysay sidaadaradeed waxay maanta halkan u yimaadeen inay waxyaabihii qabyada ahaa ee mashruuca qabyada ka ahaa ee muhiimka ahaa dhameystiraan waxa ugu horeeyay shaqaalihii dekedda ee muddada dheer u soo shaqeynayay Soomaaliland inay wixii ay xuquuq ku lahaayeen qarankan Soomaaliland ay helaan dabeedna ayagoo niyadsan oo shaqo u diyaara ay si dhameystiran ugu wareegaan DBWL oo mashruuca halka kala jaan qaadaan hanaan socodkii himiladii oo qarankan lahaa oo ku hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo in qof kasta oo muwaadin oo shaqaale u ahaa dekedan xuquuqdiisii sida uu sheegay maareeyo in maanta uu taalo akoonkii dawladda oo la siin doono waxa kale runtii aan aad ugu faraxsanahay habka dambe ee looga faa'iideysanayo Freesonki dhul ku haboon oo ku filan oo aan docodocayn iyo damqasho toonaan lahayn meel uu qof sharci u haysto uu leeyahay oo toon balan ka baxayaan ahayn dhul u madax banaan oo qaranku isagu mas'uuliyadiisa iyo maamulkiisa leeyahay gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan iyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi kuwaas oo sharaxaad ka bixiyay ujeedkoodan iyo waxyaabaha uu daaran yahay iyadoona halkaasi su'aalo lagu weydiiyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi maanta waxaanu ilaahay ba mahadle waxaanu Berbera u nimi inaanu hawlihii DBWL ka qabyada ahaa inta aan la wareejin inaanu dhameystirro wixii aanu ka qaban karro waxaanu maanta muhiimka u weyneen saaka u nimi wuxuu ahaa lacagtii shaqaalaha xaqoogii intii u shaqeynayeen dawladda Soomaaliland maadaama ay u wareegayaan DBWL in xaqoogii intii la siiyo intii baan ugu soo shubnay account-ka waxa kale oo iyana ku soo daray maadaama aynu marxalad cusub galayno in geelaha isagana aanu u furno sanduuq isla garanay madaxtooyada iyo maaliyadda isla garteen in sanduuq loo furo la yiraahdo daryeelka geelaha kowda bisha saddexaad ayaa xil wareejintu halkan ka dhici doontaa shirkadda DBWL si buuxda ay maamulkeeda ula wareegi doontaa dekedeena dhammaanna shaqaalihii ka shaqeynayeen loogu wareejin doonaa shaqaalaha maanta dhowr iyo 20 sanadood ka shaqeynaya dekedda ee kala dambeeyay qofkii ilaa sanad ilaa iyo dhowr iyo 20 sano dadkii ka shaqeynaya waxa uu waajibtay xuquuq سعادة وزير سؤال شكو الدنيا واحد هاي مقالة Freesonki Berbera أما بقى نراهضه maxay tolay dhulkay ku fidisay dekedda ee Nuubiyada hareeraheeda dhismayaal tiro badan ayaa waqtigan laga sameeyay oo laga soo bixiyay madaxtooyada miyaan la oran karin waa dhulkii Freesonka ahaa ama Nuubiyadii markii caaridka ka ilaalinaysay maraakiibta ku soo xidhanaysa Hungary-ka aad baad mahadsantii wari wax la iska bixiyo daraasadii xikmad baa wax lagu bixiyaa dadka dhulka muwaadiniinta la siiyay waa dadkii aanu ka rarnay concession area-da dhulka dekedda maanta siligeeda lagu wareejinayo waa dadkii lahaa ayeen u ciwadnay dhulkaas dad ma lahayn dawladda lahayd way u madax banaanayd waxaanu ku salaysan tahayna hab iyo qorshe ku salaysan tahay 2300 oo mitir ayaa muxuu ahaayay maanta uu yahay dekedda dhererkeedu waxaynu haysanaa maanta dekedeennuna waa 600 400 dambe oo min 2 jeer min 400 waa la kordhinayaa Abdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka Sam News TV magaalada Berbera.